hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland ayaa ka hortagtay oo soo qabatay shabakad ka mid ahayd kooxda argagixisada Al-Shabaab oo dilal qorsheysan ka geystay magaalada Kismaayo. Howlgal ay sameeyeen ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland waxa u suura gashay inay gacanta ku soo dhigaan Maxamed Cabdullaahi Abuukar iyo Cismaan Maxamed Maxamuud. Marka ay ciidanka amniga gacanta ku dhigayeen raggan waxa ay gacanta kula jireen fal dambiyeedyo waxaana ay siteen bastoolada halka mid ka mid ah uu watay qarax lagu soo dhex qariyay tarmuus. Ciidanku waxay tageen oo ay 2 miino iyo 7 bamba gacmeed ka soo saareen goobo kayd u ahaa argagixisada oo hubka ay ku duugan jireen. Raggan ayaa qirtay inay ka dambeeyeen dilal siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Kismaayo kuwaas oo loo geystay dad shacab ah oo aan waxba galabsan. Maxamed Cabdullaahi sidoo kale Cismaan Maxamed ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta waxa ayna sharaxeen fal dambiyeedkan lagu soo qabtay iyagoo ka sheekeeyay falalkii ammaanka lidiga ku ahaa ee ka dhacay Kismaayo iyo doorarka kala duwan ee ay ku lahaayeen. Waxaana ay sheegeen inay qayb ka ahaayeen abaabulka iyo qorshaha dilal loo geystay dad shacab ah oo ka dhacay magaalada Kismaayo. Ankan bastoolad isku shaqeeyeen niir bastooladii ma qaban karaan nisaab abudayda ma dadkaasaan raatay dhowr markaan iska hayst markii dambe Ismaan loo imaaday ninkaas waxa la yiri waa la hadlay bastoolada laga qaado gebigeeda bambale isoo dhiibadan sagaantiis ugu keenay Ismaan taban dhowr maalmood xaafadda taal wax kuma qaban hadana waa la soo wacay bambadii hadda wax ma qaban weysay dulli baa tahay bambada waxba arintan oo dhan waxba kama qaban karo yani sidii miyaa waa iga aamusay waa iga baxay wax jawaab ah iyo su'aal ah iguma soo celin laakiin asaga xaqiiqan u haya in asaga wax badan tuugti u dhahay asaga naftirkiis garad isheeg of oo laga toogtay isheeg dalcadda asaga ahaa isheeg masayidkan oo kan oo Soomaali Star markii la dhaafaa oday meesha lagu dilay asaga waa ani isla markaas moosan gadanay odaygaas markii la dilay Soomaali Star ay tagnaa moosan meesha la fadhiyay say sheegayaan moosan gadanay oo Soomaali Star meesha kalluunka iyo wax lagu gadaa moosan la fadhiyay waxay asagu ii sheegay ani waxa la socday anoo moos markaan soo dhameeyay asoo shirkaanka intuu ka imaaday shirkaankiis markaas uu ka imaaday oo xaafadda ka soo laabtay soo baxay yiri markaas bacmadow saan u wada ani bacmadow lacag ugu jirto oo mooskayga saan aan u wata soo baxay yiri waa maan kan dalcad way ugu yaa kan dalcad uu kan dhaawac dhogeysanay kaasana fiirinay kan dalcad ha kaasana wala jiray bacmadow saan u watay aniga mooskayga watay soo baxay yiri hatta waxba ima sheegin مش هرمود إن أنا كوبشان تام في أسكن كوب أصل دلبنا أو كذا بس أنا في سني إسلام مركي وقعي تكون شغلة وصدق ولا مفهمة إسلام مركي سان شغل أنا أبايو هبدا داعي مرك ها سيمي أو يشيني إسلام مرة كل أردي شاكي معين أنا مشيان سكي أردي بعدين ده لا غيره لون تنفذكي kankaas intaasan ka yani adiga kadib ani waxay dhahan labadaana shaqeynaysa adiga bastoolada ma ka wareegto adiga bamkan iyo garahan meesha noogay ku dhan noogay hadana waa heed markii dambe adiga waa israaceen kii oo lagu dilay xaafadda shaqaalaha oday jiriirka soonka adiga furunki ay imaadeen soonka bisha furan inay maxay tumalayna marka ninkaas yarka kala diri kan waa kan kala diri kan markii dambe hadana waxa la dhahay ninkaas adiga waa ninkaas bal adiga dilays yarkan yanin loo diri kan ma kan loo diri ninkii wax waa ka qaban waay waa ka absaday
waa ka cabsaday iyo waxaan u malaynaa kan oo ii sheeg oofiya madow odaygii lagu dilay markii labaad haddana odaygii oo masaajidka lagu dilay masaajidka Soomaali Star agtiisa haddana maxamedkan loo diray isaga haddana waa ka cabsaday markii saddexaad haddana kaas keligiisa u baxay markaan markii la dilay waxaan joogay Soomaali Star masaajidkan baajuunta ku tukaday markii odaygii masaajidka lagu dilay anina lama jirin kaasna lama jirin odaygaas haddana ku hagay meelaha dadku ay isugu yimaadaan taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubbaland Korneel Khalid Sheekh Cabdullaahi oo shir aad ku qabtay xafiiska hay'adda nabad sugidda ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan oo muddo socday hadda uu soo gabagaboobay lana burburiyay mid ka mid ah shabakadihii dilalka qorsheysan ka geysan jiray magaalada Kismaayo waxa uu taliyaha u mahadnaqay shacabka dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan kuwa Kismaayo oo uu sheegay inay yihiin dad jecel nabadda lana shaqeeya laamaha ammaanka Korneel Khalid oo arrimahaasi ka hadlay waxa uu yiri waxaan u mahadcelinayaa intii ka howlgashay dhammaan howlgallada hadda la sameeyay iyo kuwa la sameyn doono insha Allah waxaan rabaa inaan sheego waxa aan qabanay ilaa shalay ilaa xalay ilaa maanta aan ka shaqeynaynay muddana aan ka shaqeynaynay annaga shacabka oo iswadana in aan dhagar qabayaashii muddadii dambe hadda amni darrida u sababay magaalada Kismaayo aan ku soo dhigno gacanta si ay dadku ugu noqdaan noloshoodii iyo amnigoodii oo aad moodo maalmahan dambe in ay cadowgu saameyn badan ku yeesheen bulshada ku nool magaalada Kismaayo taas oo aad ka dheehan kartaan dilalkii faraha badnaa isku xigay ee dhacay iyo waxyaalihii badnaa ay sameeyeen handadaada ahaa ee dadka taleefanada loo soo dirayay ee qof walba oo meesha uu joogo loogu hanjabiyay loo tusayay in maxay ahayd sidii dadkii ay dilayeen oo kale ay u dilayaan waana fal oo waxa weeye argagixin ah oo ummadda lagu argagixinayo waxa ilaahay mahadi ah dadaal dheer oo shacabka iyo aan isla qaadnay annaga oo ciidamada amniga ah in aan ku guuleysanay in aan soo qabanno koox ka mid ah kooxihii dhibaatada badan ka geystay magaalada ee dadka laayay oo ay hormuud ka yihiin labada nin ee la kala yiraahdo Cusmaan Maxamed Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Abuukar oo aan gacanta ku hayno oo ah nimanka aad arki doontaan nimankaas oo ku ekayn bas inay laynta dadka ee ka shaqeynayay inay magaalada soo galiyaan alaabta cadawgii intay ka soo qaadaan ay keenaan ay xaseeyaan ay cid walba oo loo geynayo qaraxyadaas iyo alaabahaas ay u geeyaan meesha ay la dhaho u geey ay u geynayeen waxaan rabaa inaan u sheego waxaa maalmahan dambe ku soo badatay dadka magaalada Kismaayo in taleefano laga soo waco waxaan rabaa inaan u sheego dadka ganacsatada ah ee la soo wacayo iyo dadka dawladda u shaqeeya iyo dadka kale ee shacabka ee la cabsiinaya intaba insha Allah in aysan nimankaas cadawga waxba ka qaadaynin hadii uu alla idmo aan u taaganahay habeen iyo maalinba inaan amniga ummadda xaqiijino aan wax looga hibaysanayna jirin wax loo fiirinayna aysan jirin waxaan rabaa marka in shacabka dhammaan noocyadiisa kala gedisan uu la shaqeeyo laamaha amniga Ahmed Maxamuud Jaamac Jubbaland TV Kismaayo